No one knows the secret. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan saaka ku sugannahay degmada Ceelgule ee bartamaha gobolka Mudug. waxaan saaka doonaynaa inaan wadaagno hadii baha awood leh oo barnaamijka xiiso badan barnaamijyadii horete. waxaan saaka u guurgalnay xaaladda degmada Ceelgule. waxaana la jooga halkan madax kala duwan oo ka tirsan degmada Ceelgule. waxaan saaka doonaynaa inaan soo gudbino qaybaha ay ka tirsan tahay degmada Ceelgule. waxaana doonaynaa inaan la wadaagno mashaariic badan oo degmadaasi ku saabsan sida taariikhda magaalada, caafimaadka guud ee magaalada, isku xirnaanta bulshada iyo waliba wakaalada biyaha ee degmadaasi Ceelgule. waxaa saaka halkan ila jooga Xaaji Cabdi Maxamed Guure oo ah taariikhyahan ka tirsan degmada Ceelgule ahna asaasayaasha degmadaasi. runtii xubin muhiimana uga jira degmada Ceelgule markii loo fiiriyo bulshadeeda. waxaan ku soo dhaweynayaa mikrofoonka Xaaji Cabdi Maxamed Guure si uu u cabiro dareenkiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمان ميو من شوية وأنا هاي مقالة واحد أس كذا يبدأ كذا ضدك أسي وأنا كم ذا لكن واحد شيء هو وين مشترك حاجة يقول رجال على محل جدي محل إسبان جري هون كاسو أدوك قول كبير أد لوي يقارنه وحوي لحدنكي أي شيء ودقين إلى الآن على الجروبات ختاي وحلا وحي لهي قدرنا سوسيادي سي مركي أي واحدة صامرتي كبعدي وحي لجاري ووقتي بربكي وحن أس المركة بعدين وهذا أي بيتي وحبر الشو دين الإسلام كا أما درسيا أما دكسيا يو أو دوادي الناي لوادي يكون وحن أس الناي إسكول كا ما دوي كوكل دوي هاي المركز كبعد بمجاله تردر هرل الدجان هرل إيو بعد سوق الحين هرل أي جالكي إلى ما أنت أي كنت أنت مع هالكيلومتر إيو بر إيو هالكيلومتر مركي لوضع وفيديو بل إيو حتى هذا إيو يدور كذا وفيديو وحين كوب جارتي دلال السمية أو إسكندران بوشدة وحقصة وحي مركز كذا واقع مركز كذا هذه موجودة دال هي وحي ما أنت كل صوت هاي إن أي جارتي بيها ربع كور رواية إن أي جارتي أقل والب بيها مطار كماشي أي أبوت يعني روح يصير أقل والب أنا نادر معنا وحى كقضن حتى براجها بيها معنا وبراجها سيدا أصل أنا مقالة أنا سيد أصل كذا ومقالة أصل كذا هربر كوري دقان بعديه نروش الأبوات لكن مركان وين مقالة ودي نحن معنا أن كدرنا هي إنسان كشيء سؤالنا وهو فرضاي ما حتى هذا وريالك aad buu mahadsan yahay kaas waxa Xaaji Cabdi Maxamed Guure waxaan weydiin doonaa dhowr su'aalood dabcan Xaaji Cabdi markii la fiiriyo degmada Ceelgule waa degmo taariikh facweyn kula gobolka Mudug iyo guud ahaan Soomaaliya xilliga asaaskeeda taariikh ay ku astaysneed ma noo sheegi kartaa واللحنكي waxay ku astaysneed 1960 waxaan ku weydiinaynaa asal ahaan markii la fiiriyo magaca Ceelgule waa runtii waa magac meel ku yaala marka ma looga faalloon kartaa sidoo uu ku yimid magacaasi iyo micnihiisa وعنينا يا الجولة واحد مال علا أو ضدك بيجا عبه مركي بيبلن يدوب بلن يراب بلن وقترة بيه دردت بقى هذا مالك سال عجري أباره مركي بطان عالك بيسا يران شري مركي كل شيء عال واضح لكن كل هو حولها كون منان شري حريره هذا يعني كي حوله بيكون ينشر مركي أباره العال سيدا أسمع مقعد كراعي ما شاء الله أدبا ومع السنتهاي waxaan ku weydiin rabnaa dabcan dhowr su'aalood oo ku saabsan hadana deegaanka waxa sii kordhaya bulshada degan deegaanka sanadii u dambeeyay degmadu waxay ku dilaabsanaysay heer ay gaartay xitaa degmo inay noqoto marka ma isdhihi karnaa bulshada shacabka ku dhaqan ee degmada Ceelgule say yihiin qaybahooda kala duwan ma dad badan baa degan ma dad isku deegaan ah degan ma dad isku farac isku meel ka soo jeeda degan ma waa loo wada dhan yahay meesha ay ku taalo waa la garanayaa وما كلام مقنع أنت الدجان كان كهرة رئيسا ضدك وحوصي كلا دشاء لكن قيب بكتشوكته ما هنقيس خاصة يقيس ريه باللي هذا وخاصة متشوكه دجان كان ضدك لو يقانع دجان أو نوع خصالة
ما شاء الله أدبا وما سنتهاي وحن ومهد علينا كسوق قلت برامج وحاج عبد محمد جورة ورمدي إن طريق وين كل حلا إن جودهان جيجا كان درسان إن أضياشة رقمات كأساسياش الدقمة عيلجولة كاسنا وحول نوجو الرمية طريقنا مجال عيلجولة أدبا وما سنتهاي حاج عبد وحن كايم هاد علينا